Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabta. Markii uu Alla soo diray Nabi Maxamed oo u soo dhiibay fariinta Islaamka inuu caalamka gaarsiiyo, dadkii waxay u kala qaybsameen laba kooxood, koox raacday Nabi Maxamed iyo koox culaadisay dacwadiisii oo la dagaashay. Ugu dambeyntii Nabiga dadaal dheer uu galay, waxa uu ku guuleystay inuu saldhigto magaalada Al-Madiina Al-Munawwara, magaalada Al-Madiina Al-Munawwara oo halka uu diinta ku faafiyo. Waxaa dagaal kala hor yimid Carabtii ku hareereysneed magaalada oo deganeed jasiiradda Carabta, laga bilaabo Quraysh oo ay xigto ahaayeen iyo Carabtii kale. Dagaaladaas oo u badnaa kuwa foolka fool ah waxay ku soo gabagaboobeen in muslimiinta ay guuleystaan, diinta Islaamkana ay sare noqotay. Nabigana maadaama caalamka oo idin loo soo diray, waxa uu bilaabay inuu fariimo u diro boqorradii dunida ka talinayay qaar ka mid ah. Fariimahaasna ma ahayn kuwa dhiilo xambaarsan, waxay ahaayeen fariimo uu ku gaarsiinayo diinta Islaamka, uguna bishaareeyo khayrka adduunyada iyo abaalmarinta aakhiro. Qolo kasta qaab ay uga soo falcelisay arrinka, balse ma aysan rumaynin diinta Islaamka, mana aysan qaadanin dacwada nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam, ilaa markii dambe dagaallo iyo colaad ay ka dhexdhacday iyaga iyo muslimiinta. Iyagana waxa ay doonayeen in diinta Islaamka ay hor istaagaan, muslimiintana waxa ay doonayeen in dhambaalka Alle dunida oo idil wada gaaro. Ugu dambeynna waxaa dhacday in nabiga markii uu geeriyooday ay dadaaladii meesha ka sii wadeen saxaabadii xilka qabatay sida Abubakar, oo Islaamka guulo badan u soo hooyay 2 sano ee uu madaxda u ahaa muslimiinta. Kadibna halka waxaa ka sii waday Cumar bin Khadaab oo noqday hogaamiyihii labaad ee muslimiinta. Dagaalo badan ayuuna galay, wuxuuna ku guuleystay in uu ka takhaluso 2 boqortooyo ee ugu awoodda badneed dunida, Rum iyo Faris, wuxuuna furtay Baytul Maqdis. Kadibna xukuumadihii muslimiinta soo maray waxay halka ka sii wadeen dadaaladii dacwo fidinta oo diinta Islaamka ay gaarsiiyeen dunida inteeda badan. Waxaana kaalin weyn ka qaatay arrinka hogaamiyaal muslimiin ah oo diintooda inay kor noqoto ka jeclaystay inay iyaga noolaadaan, micnaha waxa ay naftooda u hureen inay diintooda ay sare noqoto. Intaa ka gadaal waxa uu loolan dheer ka dhex bilowday ummadda Islaamka iyo madaha diin ahaan ka soo horjeeday. Loolankaana ilaa iyo hadda ma dhammaanin, inta qiyaamaha uu ka dhacayana mid dhammaanaya uma eka. Balse halka aan doonay inaan warkayga u soo weeciyo ayaa ah, dunida markii ay hormartay oo dagaaladii ay ka daashay oo uu dhacay dagaalkii koobaad ee adduunka iyo kii labaad, dowladaha galbeedkana ay si fiican iskugu riiqmeen, saameyntii dagaalkana dunida oo idil uu soo gaaray, ayaa ugu dambeyn waxaa dhacday in heshiisyo la kala qorto, hay-ado iyo maamulo la samaysto. Dagaalkii tooska ahaa iyo gumaysigii wadamada lagu qabsan jirayna waxaa loo bedelay dagaal maskaxeed oo dadka iyaga oo dhulkooda jooga ayaa maskaxda laga gumaysanayaa, dhankii la rabana loo jihaynayaa. Waxaana lagu qasbayaa iyagoo aan qoray loo qaadanin in fikradooda iyo maskaxdooda iyo hal abuuradooda lala yeesho, dantii la rabana laga gaaro, wixii la doonana qofka laga samaysto. Duulaanka maskaxda waa in dowlad kale iyo dadkeeda ku dhex nool ay awoodeeda ku fidiso qaab qabow iyo dagaal degan, iyadoo u adeegsanaysa si gaar ahaaneed dhalinta iyo haweenka, in fikradooda iyo maskaxdooda lala wareego dagaal la'aan kaliya iyadoo la adeegsanayo propagandada iyo dagaalka fikirka. Waxaana loo adeegsadaa warbaahinta, shakhsiyaadka siyaasadda, waxbarashada iyo dhinacyada kale ee la midka, ilaa marka dambe ay noqdaan dad iska raacsan dadka kale sabab la'aan. Hadafka ugu weyn oo duulaanka maskaxda loo sameeyo waa in ummadda lagu duulayo laga dilo akhlaaqda iyo qiyamka iyo wax kasta oo agteeda qiimo kale, ilaa ugu dambeyn dhexdooda laga waayo dad leh xadaarad ay ku faanaan iyo taariikh ay tiirsadaan. Waxaana inta badan la suurad xumeeyaa taariikhdooda oo dad aan waxba gelin oo laga yaabo qaarkood inay ahaayeen gumaysakaal ayaa waxaa loo dhisaa taalooyin, waxaana laga dhigaa dad soo halgamay oo magac ku dhaxlay bulshada, halka dadka waxtarka leh ee ummaddaasi soo maray la suurad xumeeyo sooyaalkooda, lagana dhigo mid aad u fool xun oo aan waxba ku oolin, bulshadana la nacsiiyo. Inta badanna ummadaha duulaanka maskaxda ku soo qaada dadka kale waxa ay doonayaan in ummaddaasi u noqoto mid iyaga iska raacsan xadaarad ahaan. Wadooyinka ay adeegsadaan kuwa duulaanka maskaxda ku qaada dadka kale waa in ay qofka u maraan waddo kasta oo ay ka soo geli karaan. Haddii uu yahay qofka mid diinta jecel, waxaa laga soo gelayaa dhanka diinta. Haddii uu yahay siyaasi, waxaa laga soo gelayaa dhanka siyaasadda. Haddii uu yahay aqoon-yahan, dhanka aqoonta. Markasta qofka waxa ay ka soo gelayaan waxa uu qiimeeyo. Tan kale waxay isku dayaan qofka isaga oo jooga dhulalka muslimiinta inuu maskaxiyan u joogo dhulalka galbeedka.
waxaad arkaysaa madax u ololeynaysa xeerar iyo sharciyo aan ku bannaanayn diinta islaamka. waxaad arkaysaa dad islaam isla sheeganaya oo cadow isku ah oo magacyo kala duwan isugu yeeraya, dadkoo idilna isugu neceb. khataraha ugu weyn ee ka dhasha duulaanka maskaxda waa in diintaadii lagaa bedelo oo caqiido suganba aadan ku taagnaanin, in raganimadii iyo kartidaadii lagu weysiiyo. waxaa ka mid ah in manaahijta tacliinta waddamada islaamka laga dhigo mid shaki gelinaysa dhalinta muslimiinta. marka iskuulka la joogo, macallinka ugu ixtiraamka yar waa midka diinta bara ardayda. mawaadiicda ka hadlaya diinta iyo koryeelkeeda iyo saxaabadii in lagu daydana laga saaro meesha ama si kale loo dhigo. Kacab binu Maalik waa saxaabi ka tirsanaa saxaabadii Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. waxa uu ka haray dagaalkii Tabuuk sabab la'aan sida uu isagu sheegay. naf iyo shaydaan unbaa duufsaday. markii uu nebiga duulaankii ka soo laabtay ayaa Kacab iyo 2 saxaabi kale oo duulaanka aan ka qayb qaadanin uu Alle ku amray nebigiisa in 50 maalin aan lala hadlin. toobadooda ayaana sidaa laga dhigay si loo imtixaano oo toobad dhab ah inay la imaanayaan iyo in kale loo tijaabiyo. ugu dambeyntiina way ku guuleysteen imtixaankii. toobadiina Alle waa uu ka aqbalay. aayado qur'aan ah oo in laga toobad aqbalay cadeynaya ayaa Alle subxaanahu wa tacaala soo dejiyey. sheekada dhankaan uga socdo halkaa maahan ee waxa ay leedahay dhinac kale oo la xiriirta mawduuca aan ka hadlayno. waxaa dhacday markii la imtixaanayay, nin ka yimid dhanka Shaam oo ganacsade ahaa ayaa suuqa ka dhex naadiyey Kacab bin Maalik oo ku yiri dadkii, yaa i tusa Kacab. markii la tusayna Kacab wuxuu u dhiibay warqad ka timid boqor. warqadda waxaa ku qornaa, waan maqalnay in saaxiibka uu ku gooyey ay ula jeedeen Nebi Maxamed, ee inaga noo imaw, aan ku ixtiraamno, waan ku soo dhaweynaynaa, alla daardayacan kuma dhigine. waxa ay rabeen inay fursaddaasi kaga faa'iidaystaan oo diintiisa ay ka bedelaan. duulaan maskaxeed ayay ku soo qaadeen, balse saxaabiga waa uu guulaystay oo Alle ayaa sugay iimaankiisa. isma dhiibin ee warqaddii ayuu gubay. sidaasna waxa uu kaga baxsaday fikirkiisii la bedeli rabay. ugu dambeyntii, wax walbaad aragto iska fiiri, diintaadana u fiiri.